بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربي علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن هذا وفرح سنة مانتا بعد فترة إلا يمدو السنة وما زاد كل بعد ومضي بيك الفردودي وشرق المغرب أيالك اللي taasna waxay tilmaamaysaa imtixaanka adduunyada aan ku jirnay tilmaamaysaa li'anna qofka bini aadamka waxa fiican inuu xisaabtamo dadka qaarkood waxay dhahayaan xanuun baan kala geeyay corona na kala kareebtay wax kala ma ahan waa cuqubo anaga nagu degto waay li'anna qofka bini aadamka hadii uu Allah subhanahu wa ta'ala uu ku xiran yahay waxaan aaminsanahay wax kasto imaada ba Allah subhanahu wa ta'ala uu ku difaaca laakiin waxa loo baahan yahay insha Allah ta'ala in qalbiga lagu haayo wax kasta biin Allah subhanahu wa ta'ala uu awoodiisa ku sugnaatay insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa Allah subhanahu wa ta'ala in ka rajaynaynaa in culeysyada jiraan Allah subhanahu wa ta'ala uu naga qaado sida hadaba noo fududeey insha Allah ta'ala haduu Allah wadil barnaamijka aan soo gudbinayna waxaan ugu yeerinaa sheekh walaalkeena macalinkeena Allah noo barakeeyo الشيخ داود علي عدو فليتفضل مشكورا ومأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله. hadna ilaayad ma idin sheegay haduu Allah uu leeyahay sidoo khayr ka bilaawno waay haduu Ilaahay karaali naqdo bishan October 30keedana waxaan qaban doonaa haduu Allah uu leeyahay mawlidka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan rajaynayaa inaad ka soo qayb gali doontaan haduu Allah uu leeyahay culimadena sida ay ku imaan doonaan insha Allah ta'ala ku nijina sheekayna Sheekh Muuse haduu Allah uu leeyahay muhaadaradiisa meesha noogu sii wada Sheekh fadlan. alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم يبعثون. أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. أيتها الإخوة الأعزاء المؤمنون waxaa la yidhi bal xoogaa qaraabada xiriirinteedu
waxa ay qur'aanka iyo diintu ka tilmaamayaan wax ka tilmaam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay waxa inamaa yakhsha allaha inamaa yatadakaru ulul albaab diintan waxaa kuwaan samaysa ulul albaabi asxaabu lcuquuli dadka ilaahay caqliga ku manadaystay oo ilaahay fahmiga siiye inay wax dareemaan oon xoolahoo kala ahayn oo caqligooda diinta islaamku waxay fartay uga shaqaysiinayaan inamaa yatadakaru ulul albaab والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وحا أمانتي اسقال الذين كوا يصلون حريرين أيان ما وحي أمر الله إلهي أمر كبحي أن يوصل إن لحريري أول وقبل كل شيء إلهي إناد حريري سدول كل أمري إناد حريري سو حريرين وحالة قوضا سيدي حركة اللي يسكو حيري مايا معامل وناكسنين لولا دغمو قرابا لحريري والدين كأوغو الرأي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلهي وحونا لي أمر وحارت اللوغوسينا إناد رب العالمين كو خلقو كو أبوري وعقل لغان تام كهود حوله وقبل دلنتها كو سيي oo quruxdan aad uga jamaal badan tahay makhluuq oo dhan ku siiyay oo makhluuqa dhan waxa uu qurux badan bani aadanka quruxdaas aad ku soocan tahay ku siiyay walaqad karramna bani aadam kana ilaahi waa karaamayno yiri wa fadalnaahum ala kathirin mimma khalaqna tafdiilan makhluuq badan waa ka fadli badan bil aqli ya lagu fadilay waxa dadka makhluuqa uga fadli badan yahay waa caqliga dheeraadka oo rabbul caalamiin ku kalalaysta ilaahay marka wuxuu ku leeyahay allihi ku abuuray ee xawaastan ku yeela dareemayaalka oo indhahaanoo ku abuuray walaxaad ugu jeedaa qudrada ilaahay kaamilnimadeeda ishaan il u eg oon wax ka bedelano jirin oon waxba arkaynaad arkay indhii waa u furan yihiin qoftaan waa u samaysan wax nuuma jeedo quwadda ay wax ku arkayso rabbul caalamiin ku dhex abuuray nicmada lagu siiyey ka mid tahay uriska aad wax urinayso nicmada lagu siiyey ka mid tahay maqalka aad maqlayso nicmada lagu siiyey ka mid yahay carabka aad wax ku dhadhaminayso nicmadii u horeeya taabashada aad ku dareemayso nicmadii u horeysa xawaasta oo khamsada oo wax lagu dareemo ku siiyey caqliga aad ku ikraahayso oo wax ku kala ogaanaysa lagu siiyey wa'budullah rabbigaas aabud wuxuu ku siiyey nicmo dhan hadda nicmadu inta cudu nicmata la tuhsuha hadii kaadida lagu celsho imisaad adkaysa kartaa haddii oxygen-kan laga xiro imisaad noolaa kartaa adkaysa kartaa hadda haddii oo xogaa dadka oxygen-ka oo ku yaraado malaayiina laga siiha ilaahayna lacag la'aan oo kugu siiyey walxaad dareemee walxaad neefsigu waa kuu lacag la'aan indhuhu waa kuu lacag la'aan dheguhu waa kuu kala lacag la'aan kaayida laguguma celin neefsiga laguguma celin hurdada laguguma diidin caqliga lagaama qaadan ilaahayga ku abuuree ku kaamil yeelay horta caabud oo aqoonso cibaadadu marka waa inaad ka cabsataa waa inaad hadduu wax ku fara yeesho wax ka reebana ka harta cibaadadu saas waay وبالوالدين إحسانا رب العالمين هذه لغا سو غدبو hadana labada ku dhashay inaad ihsaan ugu sameeysaa lagu amraya hooyo iyo aabe haday adduunka ku wala nool yihiin imma yablugana indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma hadii labada halkood agtaada ku duqoobo ku waayeeloobo ama labaduba kugu ag waayeeloobaan فلا تقول لهما أف وركاغا ما في عنها اسكو دهين وما ندودي أيامها وركاغا آبو لو ما أدكيشت هدين ولا تنهرهما وحاس كجوغنا هدين
asliga ku dhihi kara waxaas ka joog adigu ma dhihi kartid hooyada iyo aabbaha raxmadda ayaa ku jirta naxariista waalidkiis ninkuu naxariistana awlaadiisa u naxariisanaysa birru tabiru abnaa'ukum rasuulku wuxuuna leeyahay baari u naqo waalidka awlaadaada baari alla kaaga dhiga waxaa leeyay cadaabta aakhira aan lagula sugayn waxa u horeeya caasi waalidnimo waxaad aabbaha ku samayso adoon lagugu samayno awlaad kugu siinmayn ma dhimanaysid waa lagula sugaa intay kaaga samaynayaan baarinimo haddaad u samaysana adduunkaad ku guranee manaaficiidkeeda janno ka sukow caasinimo haddaad samayso nima aabbihiis usugoo xoog leh aabbihiioo waayeela inta lugta ka qabtou tumay ou garaacay ou garaacul labada sarradow ka tumay waxaa u yimiday waa xanuunsaday sakaraadow naqday waxaa la yidhi nin shiikh ahaa loo yimid waxaa la yidhi hebel sakaraad waaye kaala yaasiinka ku akri ma ku akrinaayo yidhi mana dhimanayo war maxaa ka wadaa maya yidhi aan ma u tegaa ninkaas waa ka diidiyey waa iska joogiyey waa raysta ninkii markaas kadibaa wiilkiisaa inta qabsaday oo lugta ka jiidow tumay ou tumay kadibaa haddana loo yimid isagoo waa sakaraad la leeyahay haddaan yaasiiminaha uri aba xaqaa ku jiray iyadoona xaqa laga jaazin ma dhimanayno uri baari waalid haddaad naqatana irqigaada xataa waa laga owlaadeeda xataa baariyay ahaanaysaa caasi haddaad naqatana sinji caasiya oon gabartiisa layska diido waagii hore waa lays yaqiinay dadka caasi sinji ah ku jiro gabirtaada ma la sii jirin maxaa jira caasi u dhalaa marka adduunkaa lagula ciqaabaa waalidka caasinimadiisa waxaa sayid cumar iyo sayid cali yaa xajka dawaafeen sacyiga waa taqaaniin dhibkaa ka batay haddaad 7 jeer dhammaysood xagga tagto oo haddana dawaafka samayso meel aad salka dhigataad u baahantaa nafta ku qabanaysa markay sacyigii dawaafka dhammaysteen yaa waxaa soo gala nin hooyadiis xambaarsan ee la dawaafaya sacyigii xoogga lahay oo kaligaa ku dhibaayo ou hooyo xambaarsan yahay markaasou bayna safaa walmarwa ou saas u dhammayna waana dheer taha meeshu cali ibnu abi daal wuxuu uri cumarow waa ku naqaynaa hawr dawaafka haddaa ilaahay raxmaddiisu soo degtay ninkan hooyadiis dawaafinaya ayaa raxmaddii soo degtay nakeena uri aan ninkaan la dawaafnay markaasay mar labaad dawaafkii ku naqdeen ninkan hooyadiis xambaarsan raxmadda soo degaysa darteed ayay xajku ugu noqdeen labada sayid waana sayidul ummaddan khulafaa'u raashidiinktii cali ibnu abi daalib sayfullaahi almasluul diintaanu seefta caliyey ku qaangaarta ilaahay yidhi iyo cumar ibnu khadaab oo ninkii nabiga gadaashiis cadaaladda lagu magacaabay labadoodaa ku noqdeen nin hooyadiis xambaarsan hadday arkeen yani waa baari waalidnimadu qaymaha ay leedahay markaa wa bilwaalidayni ixsaanan wa bidil qurbaa haddana ixsaankii waxaa lagaaga rabaa qofka qaraabo kula ah dadka kula qaraabada oo riximkaaga oo walaalkaaga oo ina adeerkaaha ina aayadaaha ina eedadaaha ina abtigaa ah asal ya faracaaga dadkaasaa haddana ixsaankooda lagaa rabaa wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sadaqatun cala alfuqara fuqaraday masaakiinta sidaqadaad siiso sidaqo waaye sidaqadaad qariibka kuu dhow siisana sadaqatun wasilatun waana sidaqo waana qaraabo xariirin laba ajir waaye qaraabanimadii sidaqadii ajirkeedana waa leedahay walaalkaa oo qariibkaaga ahoo kuu baahan oo wax siintaada u baahanna waa qaraabo xariirin
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم هل عسيتم محاد مدنال هذين إن توليتم هداد جيستين والنبي مجلس كيسا كلا تكتين وتقطعوا أرحامكم أنت النبي قال لفة دين وحكومة ديليسي نكاد علماء لفة دين وروناهيسي لكن هدين لبحو وإلهي يا أدو اسكو هرتين هدات وتقطعوا أن تفسدوا في الأرض دولك هدات فساهات كسميسين مع أمالينيسي وتقطعوا أرحامكم يا مركز قرابدين أدقويسين ندك كو قريب كهاي أد رحمة دي أو كاغال كقول هاي حق كاغال هاي أكواي هدي أن تفسدوا في فإن عسيتم إن توليتم هدات قرآن كو عمل فالكيس يسنة كدغن كذا كجيستين ولا تفسير شيء هو تقطعوا أرحامكم قرابدين أدقويسين رحم وحاكم ذا نكاد قبرتي سقبته هذا قبروا أبكو إياها قبتت هايدا قبرتي أد قبته أبكو قبرت أد قبتو أبكوبا كلاو أبتيغا أو قبرت والدك قرابة دم أو زوجة قرابة دا واي رحمكم إيا نينكا قرابة دي سواسكو مد لبدا قيبوت مركا وعيكو قليين كرم وعيكو قليين حريرين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل إلهي وحور وحال أمانة يا أولي الألباب نوحاء كوا يصلون إلى حريرين آيان أو وحي مضنايين سين آيان أو قوشي أباهنايين أفدين آيان أو مرتقات كي أباهنايين سين آيان كواس أي أهل العقل ويخشون ربهم إنتان لو قدبن وحال إرادة ماشاد كسو جيدو هي ماشاد كسي جيدا لرا رحم ماشاد كسو جيدو ما تغاني ماشاد كسو جيدو واهر هويدا أهل كيدي واي هذا كسو جيدو كدلتي أي كدلين ماشاد كسي جيدنا وزوجدادي أهل كيدي labadaas waa la dhowraa meeshad ka soo jeedo waa la dhowraa meeshad hadda ku jeedana wa saaxibi bil jambi yaa la yiraahdaa qofka jiifka kugula saaxibka ah qaraabada u horeeya waanu fadli badan tahay waana ajir badan tahay iduna meeshad ka soo jeedo wuxuu yiri nin walaalkiis wallaahi nimay war ula mid tahay oo جيل حول أولى مديهاي أو يري رحم كيس حدد كيس داد أولى مديها بقول لما ورا من أول نن حدد كيس داد أولى مديها أو جيل حول أولى مديها ما أنت ورا جيل على قدام مجرى جيل ولا رها ولا مالا هدي لك على واهلي بدنيا هاش هيل بكيدو إلما هذا عبارتي كصوب حين هل من هالجيل نف جيله هدي لك على إلما هذا عبارته كصوب حين عن هذا واقود ولذلك يربادي وحين عانها حن يكلين عانها حن عان ما عبدا مسا عنت عبد النوايين عن النوايين محايل عنتدينا واكو جرتا عبدنا واكو جرتا نينا جيل اللحب بلو جد كل مغنانا يوم بيعبينهم بدر كين عان جيل بس عباي ساسا عنت اي عبد مقعود اللي سلسي جيل أو فوائد بدن أو سفينة الصحراء وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وتحملوا جيلكم يبشوا أثقالكم عليس كينا يوحن بارتا إلى بلد مقالوا لم تكونوا عادنا أهالا هينا بالغيه كوا قاري كرا إلا بشق الأنفس 500 كيلومتر كل كيلومتر يا أورتا بدر لوغا راري جيري markaas 700 كيلومتر ركو جينا المكون ولينا ولذلك وحال سفينة الصحراء دونتي باديها ليرا دونتي لما دغانده دونتودي
geela la yidhaha waa faa'id badan yahay badanaad ku qaadane waa fuule waa ku dhaansane waa caanahoodaad ku noolaane geel xoola la mid maaha nin geel xooluu la mid yahay oo wuxuu yidhi wallaahi war la mid tahay ar warranaad leedahay wallaahi waa nabad